waxaa maanta magaalada Boorama lagu soo dhaweeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ay soo dhaweeyeen dadweyne aad u tiro badan oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay kaga hortageen duleedka degmada Dila markii uu soo gaaray aqoonyahanku duleedka degmada Dila ayaa waxay u soo galbiyeen halka iyo degmada Dila halkaas oo aqoonyahanku ka jeediyay hadallo dhinacyo badan taabanaya iyo waliba Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil intaas kadib ayaa waxay u soo qulquleen waftiga uu hogaaminayo aqoonyahan Axmed Ismaaciil Samatar oo ay ku weheliyaan wasiiro ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas ay u soo jarmaadeen magaalada Boorama oo ay dadweyne aad u tiro badan oo taxneedka Gorayacow ilaa iyo magaalada Boorama halkaas oo dadweynahaasi taxnaayeen jidadka hareerihiisa oo ay wateen boodhar uu ku xardhan yahay sawirada aqoonyahanku kuna dhawaaqayay erayo ay ku soo dhaweynayaan markii ay soo gaareen magaalada Boorama waftiga uu hogaaminayo aqoonyahanku ayaa waxaa si toos ah loo geeyay khayriyada magaalada Boorama halkaas uu hadallo kooban ka jeediyay maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi qaar ka tirsan wasiirada ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntii waxaa hadallo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaana ka mid ah hadalladiisii waxaa lay baray dadka Boorama iyo hareeraheega degan inay yihiin dad elabda ilaa ka baqa yaqaan edab leh deeqsiyo ah oo qarannimada iyo dadnimada waxay tahayna garanaya sidaad ii soo dhawayseen waa waxaan hanan u qalmin oo aanan weli kasban weyn laakiin waa mahadsantiin waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada ila socda ee garabka soo siiyay oo wasiirka kalluunka ugu horeeyay walaalkay Cabdillah si kastaba haatee soo dhaweynta loo sameeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee u sameeyay reer Boorama ayaa noqonaysa tii ugu ballaarneyd ee u sameeyeen aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Awdal